الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. caruuree kulan wacan kulankan waa xalaqadii labaad ee xalaqaadka soonka. waxa aan soo qaadanay xalaqadii koowaad. waxa aan rajaynayaa in casharkii xalaqadii koowaad aan soo qaadanay la fahmay oo aan xasuusanahay. haatan waxaan gudagalaynaa xalaqada labaad, waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdiraxmaan Cabdullaahi Warsame, kana tirsan ardayda xanaanada caruurta ee Imaan. xalaqada labaad caruuree waxay inoogu bilaabanaysaa fadliga ay leedahay bisha soon. bisha Ramadaan ama bisha soon fadligeeda ma aha mid la koobi karo, balse qaar ka mid ah ayaan wax ka sheegaynaa ee aan isla socono. kow, qofkii sooma bisha Ramadaan isaga oo rumaysan Allana ajar ka dalbaya, waxa uu Alle u dhaafayaa dembigiisii hore, sida ku cad xadiiskii nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee laga wariyay oo ahaa: man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. labo, sooma bisha Ramadaan caruuree waxa uu leeyahay laba farxadood oo qaali ah, waxayna kala yihiin farxad uu adduunkan ku farxayo iyo farxad uu aakhirada ku farxayo. farxadda uu adduunkan ku farxayo waa marka uu afurayo oo maalinkii dhan ayuu soonnaa, Alle dartiina ayuuna u soonnaa. waxa uuna ku farxayaa inuu amarka Alle qaatay, uu soomay haddana uu afurayo. taas waa farxadda adduunka. farxadda aakhirada waa marka uu la kulmayo macbuudka ina abuuray, boqorka boqorada mabaahdaha loo wada baahan yahay. saddex, waxaa caruuree bishan fadliga iyo wanaagga ay leedahay waxaa ka mid ah: waxaa la furayaa albaabada jannada, waxaana la xirayaa albaabada naarta. waxaa la xirxirayaa oo la xabisayaa shayaadiinta kuwooda waaweyn. afar, waxaa bishan caruuree fadliga ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay waxaa ka mid ah: qofkii soomay Alle wuxuu ugu diyaariyey jannada albaab gaar ah oo la dhaho Rayaan, kaasoo ay ka galeen dadka soomay bisha Ramadaan keligooda. shan, waxaa caruuree weli aan ka sheekeynaynaa fadliga ay leedahay bisha Ramadaan. fadliga shanaad waxaa weeye in la aqbalo ducada qofka sooma wax walba uu Alle weydiisto. lix, fadliga lixaad waxaa weeye waa bishii qur-aanka, oo qur-aanka ayaa la soo dejiyey bisha Ramadaan sidaan wada ognahayba. caruuree waxaa halkaas inooga eg xalaqada labaad. intaan tan xigta ka kulmayna fii amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.